mudanayaal iyo marwooyin dhammaan dadweynaha ku dhaqan daafaha adduunka. Halkan waxaan ka hadlaynaa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan. Waxaa ku jira anigoo ah Abwaan Saki iyo walaashay Naqwo. Ku soo dhawow. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أبوان سكي أبو. Waa mahadsan tahay. Maanta waxaan ka hadlaynaa marar fara badan baa waxaan maqlaynay gabdho yaryar oo Soomaaliya ayaa la xoogay. Waxaan rabnaa inaan ka hadalno gabdhaha Soomaaliya lagu xoogay iyo maxaa laga qaban karaa. Dhacdooyinkanna waa wax nagu cusub maahe, wax maalin walba dhaca weeye. Hadda waxaan arkaynay gabadh yar oo aad u yar oo waxaan malaynayaa inay 5 sanaba ka yar tahay. Waxaa la odhanayay baa la xoogay. Maxaad ka qabtaa? والله سكيو وحواي xoogista gabdhaha waa wax soo noqnoqday muddo badan. Gabadhaas yarna ma arkay maanta media waan ku arkay. Laba gabdhood oo yaryar oo 3 jira ah oo afkooda meel u dhow lagu xoogin. Afkooda eed ma xasuusto adiga waa arkay. Kuwa afkooda ka hadlaya. والله aniga de waxaan ka qabaa in maaragtay horta waalidka caruurtiisa uu ilaaliyo meesha uu degan yahay uu ogaado xaaladeeda maxay ahayd tooy iskoolaadka oo kalena maaragtay laga wacyigeliyo caruurta wax laga baro in laga baro khatarta ku imaan soo wajihi karta ilmaha yar inta aan iskool gaarin hadda kuwaas oo kale iskoolba ma gaarin laakiin inay waalidku ay maxay ahayd tooy aad u dadaalaan ayaan qabaa dadaalka ay inta badan keeni karaana in ay hooyadoo kale maadaama ay iyada mas-uul badan saaran yahay oo inta aabaha ka badan ay dee ilaahayba saaray oo hooyo tahay inay 3 ama 4 ay maaragtay ilaashan karta ama 2 iska dhasho diintu ma qabto inaad 10 caruura dhasho diinta haddaad awoodi karin ilaalinteeda wax u qabadkooda waxaa lagu qaatay adi 2 3 4 waxa aad maaragtay kantarooli kartid inaad dhashid oo ilaashatid iyagana ilaahay waxaan u baryaynaa ilaahay inuu u baryo nabradhayo wallaahi waa wax maaragtay laga xanuunsado wax laga xanuunsado weeye waxaa laga yaabaa marar fara badan bay dadka ku soo laalaabatay. Waxaa jira Soomaaliya caruurta dugsi baa la geeyaa. Waxaanad malaysaa dadkeena Soomaalida ah inay ka xishoodaan inay xitaa ciyaalkooda u sheegaan hadday noqoto muxuu ahaa isku tegidoo kale galmadoo kale iyo muxuu ahaa sidii looga badbaadin lahaa ama loo xitaa anaga Maraykanka oo kale iyo wadamadan hore u maray waxay leeyihiin sex education classes oo caruurta la barayo. Dadkan wadamadan hore u maray waxay samayn jireen way ka hadlaan waalidiintood xitaa iyaga way ka xishoodaan dadkan ajaanibiga aan la noolahay. Marka iskuulaadka ayaa waxaa la sameeyey classyo lagu baro caruurta laga hadlo galmada iyo muxuu ahaa sidii adiga waxyaalo fara badan oo ay ka ogaan karaan ma garanaysaa sex education wixii khatar u keeni kara iyo wixii iyaga khatar u keeni kara iyo sida isaga ilaalin lahaayeen qofkaas oo kala hadlin stranger oo kala hadlin iyo qof hadduu halkaas ka taabto waa khalad inuu halkaas ka taabto oo kala maaha ma laga yaabaa inay dadkeena Soomaaliyeed ay ka xishoodaan. wallaahi wixii dee xishoodka looga baahnaana ka xishoon maayaan actually xishoodka waxay ahayd inuu nin weyn oo maaragtay gar iyo shaarbale inuu gabar yar oo haweysta ayaa xishoodku ahaa laakiin haddii maaragtay wixii dhinaca kale loo rogo oo wixii loo baahnaa wacyigelinka ilmaha loo sheegi lahaa laga xishoodo laakiin wixii qaladka ahaa iyo kufsigii aan laga xishoo waa iska nasiib darro waxaan qabnaa annaga dumar ahaan oo kale ina maaragtay hooyooyinka oo kale ay maxay ahayd toy samaystaan gruubo maaragtay ama dugsiyada
aniga dugsiyada nimanka ay dhigayaan waaba kasoo horjeeda absolutely Haye. macalin nin ah dugsi yaan loo dhiibanin macalin hadduu nin yahay diintu ma qabtay dhahaan inay gabadhaha iyo waxyaabahan la yaabay waxaa ka mid ah sakiyo waxaa lagu leeyahay diintu ma qabto inaad dhakhtar ka dhigato gabadh miya nin inaad dhakhtar ka dhigato haye nin inuu dhakhtar kuu noqdo adigoo gabar helaya haye diinta qabta maxay tahay ilmaha yaryar in macalinka la hoos fadhiisiyo gabdhaha waaweyn marka aniga waxaan qabi lahaa aniga aqoon ahaantayda maskaxdayda yar markaan la kaasho wiilashana macalimiin wiilalaha u dhigaan siday iyagu sheegayaan gabdhuhuna inay macalimiin gabdha ah helaan aad ayay u fiican tahay gabdhaha in wax la baro qur-aanka halka nimanka ay wax ka barayaan caruurta in loo bedelo gabdho waayo wadamadan aan ku noolnahay u fiirsa sakiyo 80% dumar ayaa iskoolaadka wax bara waa laga mamnuucay annaka kindergartenkeena ragga inta badan waa 20 markay meesha ka shaqeyso 10 naag hal nin baa ka shaqeeya halkaasna muxuu qaabilsan yahay caruurta markay banaanka ku ciyaarayaan iskoolaadka hadda waa aragtay marka break timeka cunug iskoolka kuma jiri karo ilmaha dhan banaankaa la keenaa maxaa loo ilaalinayaa khaladka dhici doonaa laga ilaalinaya ilan bila aadan baa nahay khalad ba waayin marka anigu waxaan qabi lahaa nimankan dugsiyada dhiga iyo nimankan meelaha caruurta lagu tumo oo maaragtay la dhaho dhaqan ciis baa la geynayaa at least dumar ha loo bedelo gabdhaha inay gabdhaha yaan muhiim baan u arkaa taa dhaqan ciiska marka laban ka hadli doonaa laakiinse waxaa jirta muxuu ahaa dugsi quraanka dad fara waxaa jira kabiiraa jira dadka dugsi quraanka loo saari jiray kabiiradaas waxa weeye waa dad waaweyn marka caruur walbo age walba ayaa hal meel la wada fadhiisinaya dugsi quraanka oo kale marka waxaa jira kuwa caruurta ugu waaweyn ba waxaa la samaynayaa baqaar madax looga dhigaya kabiiro laga dhigaya marka kuwa kabiiradaas haddii caruurtii aanay ogeyn hooyadood ayna la hadli karin oo kale aanan waxaan hadda ka hadlayno muxuu ahaa laga dhaadhicinayo muxuu ahaa ilmaha halkaas haddii laga taabto kale waa khalad sex education in la baro inay dadkeenu wax laga xishoodo inay noqon waa in laga dhigaa marka hore normalizing laga dhigo wey marka labaadna waxa weeye kabiiradoo kale waxaa laga yaabaa ilmo yaryar oo meesha iska fadhiyo nina waxa weeye kabiiradana waa dad qaangaaday oo muxuu ahaatay marka aan kaa dhexgala sakiyo waxa weeye macalin baa wuxuu u dhigaa waxa laga yaabaa hal macalin baa wuxuu u dhigayaa almost adiga 50 caruura waa waxaan macquul ahayn waxaa laga yaabaa macalinka inuu iska tago oo danihiisa iska qabsado marka uu xoogaa dhigo oo looga tago kabiirada sida aad sheegaysid ilmahaas yaa ka mas-uula ilmahaas yaa ilaalinaya ilmahaas yaa mas-uuliyadiisa in lacag buu guranayaa macalinka bilaash uguma dhigaayo moogti diinta baraayo haddaba iskoolaadka wadamadan oo kale markaad fiirisid halkii galaas 3 macalin baa joogta ilmaha markay banaanka usoo baxaan galaas walba 2 macalin baa cunug soo raacaysa 20kii cunug hal galaas kasoo baxda 2 macalin baa soo raacaysa 2 galaas oo kale la soo deynaa ama 3 galaas oo kale la isku soo dhex deynayaa 8 qof ka badan caruurta inay ilaaliyaan marka caruurta ilaalintoodii baa anaga boojkeedna ka maqan caruurta ilaalinteedii baan jirin weliba waxyaabaha aan ku sii fakanay dee dad aan guryaha fadhinoo socod badan baan haysanaayo luuq walba gelayo dadkii baa socda haddii dadku sida meeshaan oo kale guryaha ku jiri lahaa caruur badan baa la kufsan lahaa believe me dadkii baa socodkooda badan yahay oo qofkii kalsooni badan ma helayo ilaa uu dee ilmihii yaraa ama meel banaana geysta ama qol kusoo xirta mooyaane marka waxa weeye dugsiga waa in lala xisaabtamaa macalimiinta dugsiga in ay maaragtay u sameeyaan ilmaha ilaalo gaar ah hal qof ay mushahar siiyaan oo qof weyn ah ee ilaalo gaar sameeyaan ta kale gabdhaha iyo wiilasha anigu waxaan dhihi lahaa hooyooyinka Soomaalida ah ilmihiina ilaashta ilmaha raggan dhahaysaan wax u dhiga ha laga daayo gabdhaha
gabdho ha loo raadiyo macalimiin ah marka gabdhaha wiilal ha loo raadiyo macalimiin macal internetka dadka looga dhigaan ka hadlaya also wax xishood ma jiro ayaanta internetka laftiisa wuxuu rabo ka sameynaa inay qof ilaahay ka baqi waayey dadna kama baqaaye marka laakiin kufsigan kuma keliya kuma eka inta dadka badan waxay u malaynayaan inay ku eg yihiin gabdhaha keliya qof walba ayaa la kufsan karaa waxaa laga yaabaa wiilal yaryar in la kufsado xitaa ma loo baahan yahay marka ma laga yaabaa in ay dowladda ama dowladaha ay sameeyaan structure dadkii in loo sameeyo ma laga yaabaa sex educationkan ma laga yaabaa inay dadkeena ku darsadaan buugga si loo baabi'iyo loona ogaado muxuu ahaa dadka carruurta loo baro ma garanaysaa inay waalidkood ay la sheekaysan karaan waxyaalo fara badanna kala sheekaysan karaan ilmaha inta badan horta waxaa la geeyaa oo ilmaha ilaa uu qur-aanka dhameeyo iskool ma bilaabo fitnada koobaadna dugsigay ka bilaabataa iskoolaadka way yaryihiin khaladaadka ka dhaca ma fahanti khaladaadka ugu badan ee carruurta dugsiyaday ka dhacaan marka dugsiyada in dadka dugsiyada haysta loo sameeyo wacyigelin loo sheego ilmaha maado la siiyo inuu qofka hadduu meeshaas ka taabta khalad tahay inuu hooyadiisa u sheego inuu maaragtay ka cararo inayna normal ahayn iyo macalinka lacagta uu guranayo oo 40kaas lacag cunug ka guranayo in loogu sameeyo qof weyn oo shaqaale ah oo ilaaliya kabiiriinta laftigooda kabiiriinta lacag lama siiyo moogta insha allah marka haddoo kale teeda kale markay khaladaadkaasoo kala dhacaan oo ilmaha yar saas loo sameeyo in ilaahay intaanu ka boqono hadduu cunugaaga yahay wixii khaladkaa sameeyey hadduu wiilkaaga yahay hadduu walaalkaa yahay innaba haddaad og tahay in ilmaha yar maaragtay inaa qofkii lasoo sheego ciqaabtiisana la mariyo dowladdana ay soo rogto xuquuq maaragtay ganaax lagu sameynayo qofka markuu ilmo ama taabto ama hungureeyo ama uu kufsadoo kale in ganaax iyo sanadooyin badan loo qoro maaragtay si ay qofka uu iyaga laftigooda u baqaan hadda ma aqaan aniga systemka Soomaaliya qofka markuu qof kufsado waxa lagu sameeyo ma garan karo ma la xiraa ma la dilaa ma la ciqaabaa ma garan karo qof og ma laha ciqaabtana way u kala badan tahay haddii dee aad tahay ciqaabtana waxay u kala badan tahay kii laandheera ah dee waa kii laandheera ciqaabtu yar ciqaabtiisu waa yaraanaysaa ama wasiire ka dhalatay reerkaad ka dhalatay bay ku xiran tahay iyo ciqaabtaada intay leekaanayso iyo qofkaas reerku ka dhashay marka waxaa loo baahan yahay system in meesha la dhigo dadka lagu ciqaabayo dadku way dadkana way baqaan bini'aadamku ma xishoodo uu baqaa wadamada hadda aan joogno sharci bay samaysteen sharcigaas haddaad ka gudubto waxaad og tahay ciqaab inaad marsanayso adaa is ilaalinaya iyadoon ku ilaalin adaa is ilaalinaya marka waxaad diidaysaa inay khaladaad kaa dhacaan halkaas lagu geeyo marka waxaan samayn lahaa dowladda Soomaaliya inay samayso qofkii ilmo kufsada maaragtay sharcigan uu mudanayaa 20 sano 15 sano weliba anigu waxaan dhihi lahaa hal la badiyo hal la adkeeyo ilmo 3 jir nin kufsaday in 30 sano loo qoro istaahil buu u yahay maaragtay halkaas uu ku jiro oo maaragtay annagana aan maaragtay aan ilaalino xuquuqda carruurta hadduu wiilkaaga kufsada aad soo sheegtid walaalka hadduu ilmo yar kufsada aad soo sheegtid ina adeerka hadduu kufsada aad soo sheegtid wixii gurigaaga ka dhacaya ilaa waad og tahay aad diiwaan gelisid marka dadku inay diiwaan geliyaan hadduu xitaa qof eheladooda uu yahay lagu qaado ganaaxaas oonan sharciga loo adeegsado uuna qof walbaba hadduu xitaa ilmahaaga uu sameeyo addee ciqaabtiisa uu qaato haddii wixii la qarqariyo waxay noqonaysaa wax la qariyay wax kalaa jiraba waxa fiican maqshe waxa xun ma qarino waxa fiican aan qarinaa maaragtay ilmaha yar waa inuu hadda carruurta iskoolaadka dhigata wadamadan waxay sameeyaan waxay u dhigaan every khatar ku imaan karta cunuga muxuu kuga taxadiri karaa haddii halkan lagaa taabto
galmadaa looga sheekeynayaa waxa ka dhaca loo qaabka carruurta ilmaha u abuurmaa loo sheekeynayaa cunugii uu ka dheragsan yahay si markuu waxaan qofka u sameeyo uu arko in wixii loo sheegi jiray ay tahay oo dee dadka waaweyn ay samayn jireen inay tahay buu ogaanaya in ilmihii wuu ka dheragsan yahay wixii isaguna xitaa uuna ogeyn waa wax ula baro cashar ahaan loo baray wixii markii laguu sheego oo aad ka dheragsan tahay iyo markaad weligaaba arag waa kuu kala sawir xitaa adiga laftigaaga adigaagaas weyn hadda xitaa waalidiinta maraykanka showba maalin hore fiirsanaya documentaria waxay ka hadlayeen marka waalidiintu inaynan wax fara badan barin iskuulaadka iyo ma garanaysaa sex aidkan oo muxuu ahaa classkan oo qasabka ku ah carruurta inay qaataan ay bareen waxyaalo fara badan ee uga sheekeeyeen because waxaa laga yaabaa waalidka inuu ka xishoonayo se loo baahan yahay haddee waalidkiisa uu ka xishoonayo una rabin inuu dee carruurtiisa la sheer gareeyo waxaa loo baahan yahay xitaa in dowladaha meelaha ka jira dhulalka soomaalida ay degto o dhan inay sameeyaan kalaasyo ay ku barayaan carruurta iyo muxuu ahaa xaquuqdooda iyo meelahan laga taaban karin iyo wuxuu yahay ma garanaysaa galmadoo kale waxaan kaloo u baahan nahay hadda ilmaa la xoogay gabadh baa la xoogay waxaa la rabaa in waa 2 gabdhood saan maqlay 2 gabdhood yaryar waa 3 jir ha ilaahay ha fududeeye waxaan sheegayaa waxaa la rabaa in ciqaab qofkii la saaro moogta waxaa laga yaabaa dadkii inta badan waxay la gaas dhacay gabdhaha wax walba la blame gareeyaa waxaa la odhanayaa ama gabadhana ama qofkii reerkii wuxuu ka xishoonayaa gabadhooda in la guursan waayo ama la ceebeeyo iyadoon waxba gelin ba haddana waxaa lasii saarayaa iyadii baa la blame garaynaya absolutely waxa weeye waxaa magacyaa loo bixiyaa waa lagu caynayaa waxaa laga yaabaa inaan bisaa sheegaysa guurka oo kale uu dhib ku noqdo laakiin maaragtay annaga keligeena ma aha adiga dad badan baa ka xishooda inay sheegaan kufsigaas laakiin hadda sida wadamada hadda sida loo ilbaxay oo maaragtay internetkii waxaas iyo wax walba dee loo sheergareeyay oo easy kula noqonaysaa markuu qof kale dhibaatooyinku soo maray ka sheekeeyo dhaho anigana waan soo maray dadka kalena aan uga digno waxaas haddii la arko oo kale maaragtay way fududaanaysaa waxaan qabi lahaa in la sameeyo brogaraamo dadka dhibaatooyinka soo maray oo kale oo ka sheekeeya oo dhahaan anoo kale waa soo maray saasay saasaa igu dhacday wiilasha laftigooda wiilal badanoo waxaan arkaa hadda khaniisoobayba oo yiri waa la isoo kufsaday wiilasha laftigooda ay ka sheekeeyaan ay yidhaahdaan waxaan dhibkaana la soo maray ilmaha looga digo oo dadka dhibka iyo marxaladda soo maray ay uga digaan dadka kale hadda waa aragtay wadamadan qof haddii la dilo oo qof waa laga dilo qofkaas wuxuu noqonayaa dadka difaaca qofka dadka la dilo ee maaragtay gangiska oo kale ama wuxuu noqonayaa qof dembi baara ah ama wuxuu noqonayaa qof wacyigeliya dadka kale yacni u faa'iideeya ummadda badan aan ogaan waxan oo wixii isaga qabsaday experiencekii lasoo kulmay oo la wadaago uu ka badbaadiya dadka kale ee ku sugan ummadda kale si ay ooga badbaadaan marka kule waa dadku wade mid lasoo kufsaday iyo mid ooyaya iyo mid carruurtii looga tegay iyo mid silcaysa waa badannahay waxa waaye in maaragtay qof walba dhibaatadii uu soo maray hadduu dadka kale uga faa'iideyn karo uga faa'iideeyo brogaraamo la furo inta facebook lagu jiro laleeyahay anoo reer hebel iyo anoo laandheera iyo ummadda la yasaayo laleeyahay maaragtay anigaa kaa sarreeya iyo adiga ma hadli karti inta laleeyahay ajarna kaagama socdo wax wanaagsan oo ajar kaaga socdo ilmahaagana ku badbaadayaan kuwa ayayga u tahay ku badbaadayaan kuwa deriska u tahayna ku badbaadayaan bulshada ku badbaadayso ayaa la qaatay maalin dhaweed waxaan fiirinayay oday aad u weyn oo yiri maaragtay intaan luuqadda soomaaliga la qorin ayaan macallin ahaa oo english baa lagu qori jiray luuqadaha uu yiri marka wuxuu yiri galaaskii baan soo galay galaaskii markaan soo galay macallin baan ahaa carruurtii already waa loo sheegay waxaa leeyahay nin midgaana maanta waxa idiin dhigaya dabadeedna sabuuradday ku qoreen oo english yar oo broke ay waxay ku qoreen buu yiri waan ku ognahay waxaa tahay
marka inta ay xooggaa leeyihiin u sheegayaan carruurta nin noocaasaa soo socda inay wax kale u sheegaan baa la qaatay oo dhaan war waxaan iska ilaaliya waxan baa khatar idinku keeni kara ma fahanti wuxuu yidhi ninkii markaa meeshii soo gala galaaskii waa naxay buu yidhi go-aan baan waxaan gaaray buu yidhi inaan iskaba daayay waxbarashada gebigayga aniga dhan dhulkan galay buu yidhi yacni moralkii dhan baa iga dhintay ilmihii aad waxbarayso oo lagugu bahdilayo waana macallimiinta kale buu yidhi maaragtay dadka sameeyey khaladaadkan carruurta waa innocent ilmaha waxaa bartiduu ku dhaqmaa marka wuxuu yidhi ma masixin buu yidhi sabuuradii waan u daayay intii wax ku qoreen galaaskaa galaba waxaan ku qoraa buu yidhi midgaankii baa maanta wax idin baraya 4 galaas markaan ku qoray ayuu wuxuu yidhi markii dambe macallimiintii soo baxeen ayuu yidhahdeen war niyo adigu maxaad wadaa markaasuu yidhi war idinkaa meel walba saasaa nagu samayseen oo carruurta idinkaasaa ku yidhi waan ka hadli doonaa taas insha allah naqoy waxaan rabay waxaan ka hadlayaa yacni waxyaabaha xunxun aan carruurta u sheegno carruurta waan u sheegi karnaa ninka maanta ku imanaya waa midgaan ama waxanaa xun ama qofkan dil ama waxun baan u sheegi karnaa waxa wanaagsan ilmaha wax fiican u sheeg uu isaga wax ka faa'iidayo waa inuu wuxuu ka faa'iidayo oo waxyaalo fara badan oo ay ka mid tahay muxuu ahaa inuu dee ilmihiisa baro si aanan advantage looga qaadan uu u sheegi karo muxuu ahaa halkan yaana lagaa taaban muxuu ahaa galmada iyo muxuu ahaa dee sex education inuu carruurtiisa siin karo bari karo ma garanaysaa in xaquuqdooda ay u dagaalami karaan hadday ilmaha yihiin waxaad umalaysaaba intaas xaquuqdaba dadka Soomaaliyeed in laga ilaaliyay maxaad kaloo rabtay shaygu waan soo xidhaynaa halkaas inaan rabnay inaan ku dhamayno wax kale ma rabtaa inaad ku darsato waxaan ku darsanayaa Soomaaliyey 3 wax iska daaya weliba 4 wax iska daaya sida uu odaygaasana tiriyey wuxuu yidhi ha noolaado qabiilku haba sheegin sinaan ha soo qaadin cadaalad laangaabku ha iska jooga halkiisa war ilaahay laga boqo carruurta aan u sheegno wax u taraayo insha allah waad maqasheen waxaan leenahay intaan isku soo laaban doono sidaasi nabadgelyo waxaan halkaas ka hadlaynay in gabdhahaas la xoogay inay ka jirto xaqiiqana ay tahay lana rabo sidii aan uga badbaadin lahayn gabdhaha iyo wiilashaba la kufsanayo yaryar ee waddanka ku nool loona baahan yahay in wax laga qabto waxaan leenahay sidaas nabadgelyo waa anigoo ah Abwaan Saki iyo walaashay Naqo waxaan leenahay intaan isku soo laaban doono ma dhamayni sidaas iyo nabadgelyo sidaas nabadgelyo السلام عليكم وعليكم السلام